nin waayeel waaye arag ahaa ayaa la weydiiyey maxaad ka baratay waayihii adduune aad soo joogtay markaasuu ku jawaabay sida tan waxa uu yidhi waxaan ka bartay in adduunyada qiimaheedu ay tahay diin iyo in lagu daydo salafkii wanaagsanaa waxaan bartay ayuu yidhi in qofka la dulmo inuu mar aarsan doono wakhti dheerba ha ahaatee waxaan bartay in noloshu ay go'i karto ilbiriqsi kasta waxaan bartay hadalka macaan iyo wejiga furan inuu yahay akhlaaqda hoggaankeeda waxaan bartay in qofka ugu qanisan ee dul saaran adduunkan uu yahay kan haysta caafimaadka iyo nabadgelyada waxaan bartay in qofkii tallaashatiin uusan marnaba sugayn inuu gurto timir waxaan bartay in cimrigu uu dhammaanayo balse howlaha adduun aysan dhammaanayn waxaan bartay in qofkii raba inay dadku dhegaystaan uu isagu marka hore dadka dhegaysto waxaan bartay in safarka ay safraan dadku uu yahay halka keliya ee lagu ogaan karo kartidooda waxaan bartay in kan jaahilka ah uu ku celceliyo aniga markaasna gudihiisu waa faaruq oo waxba kuma jiraan waxaan bartay in kan haysta jab yar oo dahab ah uu weligiis dahabkiisu ka dhalaalayn balse kan haysta bir ay ka daxaloobayso birtiisu waxaan bartay in kuwii aan ku soo duugnay xabaalaha ay ahaayeen kuwa ku mashquulsan howlo adduunyo ballamana ay lahaayeen howlo badanna ay hor yaalleen balse aysan xaqiijin howlahaas waxaan bartay in guriga la qaboojiyo sariiro fiican la dhigo si aan ugu raaxaysanno geeridii yareed yacni hurdada balse aan qabriyadeenna ku qaboojinno duco iyo alla kacabsi iyo weliba camal wanaagsan si aan ugu diyaargarowno geeridii weyneed yacni dhimashada